Salaamuhu saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena ku saabsan go'aanka dowladda federaalka ee Imaaraadka Carabta. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo biir si aan kuula wadaagno xogo maalinle ah. Mahadsanid. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inay soo saartay go'aan lagu mamnuucayo diyaaradaha ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee ujeedkoodu yahay ciidan iyo xamuul. Xogaha ayaa tilmaamaya in dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah ula wadaagtay dhigeeda Imaaraadka go'aankan lagu xanibayo dhaqdhaqaaqa diyaaradahooda ee gudaha hawada iyo garoomada dalka. Tallaabadan ayaa timid xilli maanta la shaaciyay in dhulka iyo hawada Soomaaliya lagu tahriibiyay hogaamiyihii gobolka Yemen Aydurus al-Zubaydi, kaas oo Imaaraadku dalkiisa u qaaday. Go'aanka Soomaaliya sida la xaqiijiyay ma saameynayo diyaaradaha rayidka ah ee isticmaalaya hawada Soomaaliya. Soomaaliya oo dhexda kaga jirta xiisadda ka dhalatay aqoonsiga Somaliland ayaa si weyn loogu eedeynayaa in Imaaraadku ku lug leeyahay oo weli tallaabo buuxda laga qaadin. Diidmada diyaaradihiisa xamuulka lagu mamnuucay ayaa lagu fasiran karaa in Soomaaliya iskaga dhaqayso gafka diblomaasiyadeed ee ay ku dhacday kadib markii eedeysane baxsad ah dhulkeeda uu marsiiyey Imaaraadku. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii 2022 iyo 23 heshiis aan wax badan laga ogeyn oo ciidan la gashay dalka Imaaraadka, kuwaasoo u oggolaanaya Abu Dhabi inay dhulka, cirka iyo hawada Soomaaliya waqtiga ay doonto iyo danta ay doonto u isticmaali karto. Tallaabada ee Muqdisho maanta qaaday ayaa ka dhigay inay isbaryeelayso, sidoo kalena ay tilmaam u tahay jihada uu u socdo xiriirka labada dal. Dhanka kale, bayaan wadajir ah oo ay soo saareen wasiiradda arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga Islaamka, kuwaas oo ay ka mid yihiin Sacuudiga, Turkiga, Masar, Qatar iyo Djibouti, ayna baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar, ayaa waxay si weyn u diideen uguna cambaareen booqashadii sharci darrada ahayd ee wasiirkii Israa'iiliga ahaa ku tegay Somaliland 6 Janaayo 2026. Bayaanka waxa aan ka soo muuqan dalka Imaaraadka, kaasoo aan ku saf ahayn dowladda federaalka tan iyo markii xiisaddii aqoonsiga Somaliland soo baxday.